waqtigii uu aarku xoogga ahaa aabbaheed sidaas ayuu reerkiisa u difaacan jiray. sheekadan waxay ku socotaa goosha yar ee dhashaa alfiirisda ay aabbaheedu daba socoto. aabbaheedu ay ka jeceshay carruurta kale sida ablooba ay aabbahoodu jecel yihiin, laakiinse sheekadu waxay xumaan doontaa marka aabbaheed talax gabo, awooddan uu maanta leeyahayna ay soo yaraato ee uu duqoobo, waana lagu soo maqan maalin ay noqoto. ahaan hadda waa qaangaadh, waxay la nooshahay hooyadeed iyo aabbaheed. waa 4 jir isu geysatay. waxay la nooshahay oo dhalay geesiga dhalay waa libaax alla moodin oo libaaxyo badan oo hore meel iskaga tiriyey. maanta laakiinse waxay farxad ku noolaadaanba khatar badan ayay wajahayaan faamiligani. waxaa ku soo baxay 2 libaax oo saad u aragto cadhaysan oo walaalaa. islaantii ayaa soo carartay, way jahan mar habaafinaysaa, waa laga diiday. waa iyada looma socdo, waxaa loo socdaa boqorka. waxaana la rabaa in lagala wareego dhaxalka oo iyada oo hooyada ah iyo libaaxadda weynanta ah ay la wareegaan. wax alla waxay sameeyaan garanayso. libaaxana hadda waa gaboobay oo da'bu intuu soo difaacay hadda waa hadda waana soo weerara inantiisa wataa. wax alla waxay u qaban kartaa ma jirto oo way ku dhex dhimanaysaa. iyadana dhaxal ayay u qaadan doonaan haddii aabbaheed ka badiyaan. isaguna iskama celin karo 2 nin oo dhalinyaro hadda waa talax gaba. hadda waxay diyaar u tahay inay nasiibkiiyo ducada u hayso aabbaheed ilaa uu aabbaheed badbaadi. wax la wadaba dagaalkii waa la gudagalay. dusha ayay ka fiirsanaysaa aabbaheed oo 2 nin intay dhulka dhigteen ay wadaagayaan sidii faydhadii. waxay garaacaanba goor dambe ayuu isdhiibay. hadda waa sagootinaya inantiisii. wejiga ayuu siiyey. sidani waa sagootinta libaax. inantiisii wiilaya aabbayn badan baa ku difaacay, maanta waa ku difaaci kari waayey, nabadgeliyo. wixii lagu idhaahdana aqbal ayaan lagu dirin. hadda laga bilaabo dib isoo arki maayaan. waxay ka mid noqonaysaa dhaxalka ay la wareegayaan 2 boqor ee cusub ee meeshan qabsaday. tanina waa nolosha libaaxu sidaa ay ku dambayso aakhirka noloshooda. haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan falowda iyo sheertaa igu camira. haddii aad hore noola joogteena waad ku mahadsan tahay daawashadiina.